John Wick waxa uu xaaskiisa Helen ku waayay xanuun dilaa ah. Waxa uu helayaa eey yar oo ku magacaabaya Daisy si uu uga caawiyo inuu la qabsado murugada. Isaga iyo eeyga ayaa xiriir fiican yeelanaya oo waxa ay ku qaataan maalintooda baabuurkooda Ford-ka ah. Marka uu tago kaalinta shidaalka waxa uu la kulmayaa 3 nin oo burcad Ruush ah oo hogaamiyahooda Joseph Teresov oo ku adkaystay inuu iibsado baabuurkiisa. Laakiin John ayaa diiday inuu iibiyo. Mooriyaanta ayaa John u soo raacay gurigiisa habeenkaas wayna garaaceen ilaa uu ka miyir daboolsoomay. Baabuurkiisa ayay ka xadeen sidoo kalena waxa ay dileen eeygiisii. Joseph waxa uu gaariga geynayaa dukaan gawaarida ah oo uu maamulo nin lagu magacaabo Aurelio si loogu bedelo nambarka aqoonsiga gaariga. Aurelio waxa uu gartay baabuurka. Markii uu ogaaday in Joseph uu ka xaday John ayaa uu feeray ka hor inta uusan ka tuurin dukaankiisa. John ayaa booqday Aurelio kaas oo u sheegay in Joseph uu yahay wiilka Figo Teresov oo ah madaxa ururka dambiyada Ruushka ee magaalada New York. Kadib markii Aurelio uu Figo ku wargeliyo waxa uu wiilkiisa ku sameeyay John ayuu garaacayaa kadibna u sharaxayaa cidda uu yahay John Wick. John waxa uu ahaa gacan ku dhiigle lagu naanaysi jiray Baba Yaga oo afka Ruushka ku noqonaysa ninkii rooxaanta ahaa sababtoo ah xirfadiisa dilaannimada. Waxa uu intaas ku darayaa in markii John uu rabay inuu ka fadhiisto oo uu guursado Helen, Figo waxa uu siiyay hawlo aan macquul ahayn taasoo la macno ah inuu ku lug lahaa shirqoolo badan oo waqti gaaban ah. John wuu ku guuleystay dadaalkiisuna wuxuu furo u ahaa aasaasidda ururka Figo Teresov. Figo wuxuu isku dayay inuu la hadlo John oo ku qanciyo inuusan sameyn wax aargudasho ah, laakiin John waa ka aamusay oo ka diiday. Figo ayaa markaas u soo diray 12 nin oo dilaa ah guriga John, laakiin John waa uu wada dilay dhammaantood oo meydkoodiina si xirfadaysan uga takhalusay. Figo oo aan la yaabin ayaa duldhigay madaxa John $2 milyan. Shakhsi ahaana wuxuu qandaraaska siiyay macalinkiisii hore ee Marcus. John waxa uu magangeliyo ka raadsaday Continental Hotel kaas oo si gaar ah ugu adeega dambiilayaasha adduunka, laakiin aan ogolayn in dil ka dhaco gudihiisa. Figo waxa uu labanlaabay abaalgudka kuwa doonaya inay jabiyaan qawaaniinta hoteelka si ay gudihiisa ugu dilaan John waxa uu ka ogaaday Winston oo ah mulkiilaha hoteelka in Figo uu Joseph ku ilaaliyo goobtiisa cawayska ee Circle-kaas. John waxa uu galay Circle-kaas oo dilay raggii ilaalinayay Joseph, laakiin waardiyayaasha Figo ayaa ka soo dhexgalaya jidka Joseph una ogolaanaya inuu baxsado. John waxa uu dib ugu noqonayaa hoteelkii si uu u baanto dhaawaciisa. Miss Perkins oo ah gacan ku dhigla rug cadaa ah ayaa si dhuumasho ah u gashay qolka John si ay u disho, laakiin Marcus ayaa John u digaya isagoo u ogolaanaya inuu qabto Perkins. Wuxuu ku qasbay inay u sheegto goobta uu joogo Figo iyo kooxdiisa. Baaskoolo dabadeeda ayuu ku dhufanayaa si ay u miyir beesho oo waxa uu uga tegay gacan ku dhigla kale oo lagu magacaabo Harry si ay u sugto ciqaab dheeraada. Si kastaba ha ahaatee Perkins waa isxoraysay oo dishay Harry. John wuxuu u safray kaniisadda Little Russia taas oo u adeegta saldhigga Figo, waxaana uu baabiyey lacag iyo waxyaabo kale oo meesha u yaalay. Markii Figo iyo kooxdiisu yimaadeen, John ayaa gaadmo ku weeraray, laakiin waa la jabiyey oo la qabtay. Figo wuxuu ku caayay John inuu u maleeyay inuu ka tagi karo noloshiisii hore ee dilaannimada. Ka hor inta aan John la dilin, Marcus ayaa mar kale soo dhexgalay isagoo u ogolaanaya John inuu isxoreeyo oo uu daba raaco Figo, kaas oo ugu dambeyntii si qasab ah ugu sheegay goobta Joseph joogo. Intaa kadib John wuxuu u safray guriga uu joogay Joseph, waxa uuna dilay isaga iyo ilaaladiisiiba. Perkins waxay ogaatay in John iyo Marcus ay isla shaqeeyaan, waxayna u sheegtay Figo, kaas oo Marcus u garaacay si uu xog uga helo ka hor inta uusan ku dilin gurigiisa. Figo wuxuu wacay John si uu tan ugu sheego, isaga oo qorsheynaya inuu u diro Perkins si ay gaadmo ugu disho. Perkins waxaa loogu yeeray kulan ay la yeelato Winston oo ah mulkiilihii hoteelka, kadibna waa uu dilay waayo waxay jabisay qawaaniinta hoteelka markii ay Harry ku dishay dhismaha hoteelka gudihiisa. Winston wuxuu wacay John si uu ugu sheego in Figo uu qorsheynayay inuu ku baxsado helicopter. John waxa uu ordayaa dhanka xeebta halkaas oo ku dilay staafkii Figo ka hor inta uusan Figo la gelin dagaal arxan darro ah oo ka dhacay goob. Figo ayaa la soo baxay mindi, laakiin John wuxuu u ogolaaday in lagu dhufto, tan oo Figo ka yaabisay. John ayaa markaasi hubka ka dhigaya Figo oo si ba'an u dhaawacaya. Dhaawiciisa awgii John wuxuu istaagay rugta caafimaadka xoolaha ee xeebta ku taal si uu u dabiibo nabarkiisa oo uu ka haystay eey yar oo loogu talagalay in la dilo. John iyo eeygu waxay ku socdaan guriga iyaga oo ku sii socda jidka loo maro, halkaas oo ah meeshii ugu dambeysay ee xaaskiisa Helen isu raaceen. Filimkani halkaas ayuu ku dhammaaday. Fadlan haddii aad doonaysid filmo fara badan oo kooban oo af Soomaali ah, fadlan subscribe noo saar, like-na nooga tag si aad uga caawistid channelku inuu koro.